Sidee u shaqeeyaa sharciga badaha? Muuqaalkan maanta waxaan ku eegi doonaa sida uu u shaqeeyo sharciga badaha ee caalamiga ah. Ku soo dhawow boggeena Togala View siina gudbi muuqaalka daawade. Sharciga badaha oo caalamka looga yaqaano Maritime Law waa nidaam sharci ah oo aad u ballaaran oo hagaya wax kasta oo ka dhaca badaha iyo biyaha maraakiibta ganacsigu isticmaalaan. Dunida maanta aan ku noolnahay in ka badan 90% alaabta la isticmaalo waxa ay ku safraan xeebaha iyo badweynta. Sidaa darteed sharciga maamulka iyo dhaqdhaqaaqaasi wuxuu noqday laf-dhabarta iyo dhaqaalaha caalamiga ah. Mar kasta oo markab shixnad qaadaya uu kala gooshayo adduunka, ama mar kasta oo shaqaale badmareen ah u shaqaynayaan xaalad adag, waxaa jiraya xeerar, heshiisyo iyo habraacyo ilaalinaya badaha iyo dadka iyo hantida iyo guud ahaan deegaanka badda ku teedsan. Sharciga baduhu waxa uu ka shaqeeyaa meel kasta oo biyuhu yihiin kuwa ganacsi lagu sameeyo, haba ahaato webiyada, ha ahaato badweyn, xeeb, guluf ama xitaa webiyada ballaaran oo maraakiibta rakaabka iyo ganacsigu mari karaan. Sharcigan waxa uu maamulaa arrimo badan oo kala duwan sida amniga safarka maraakiibta, heshiisyada rarka iyo badeecadaha, xuquuqda shaqaalaha badda, iyo xallinta muranada ka dhasha shilalka iyo khasaaraha rarka. Markab haddii uu ku gubto badweyn ama laba markab isku dhacaan ama xataa haddii rarka konteenarada ku jira ay badda ku lumiyaan, waxaa jira hab cad oo sharci ah oo lagu go'aamiyo cidda mas'uulka ka ah iyo sida loo magdhawayo khasaaraha dhacay. Mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan ee sharciga badda waa sida dunidu u heshiisay in badaha loo kala leeyahay. Heshiiska caanka ah ee loo yaqaan UN Clause ayaa qeexaya in dal kasta uu leeyahay 12 mayl badeed oo u gaar ah oo loo yaqaan territorial waters, halkaas oo uu dalku ka taliyo sida dhulkiisa oo kale. Waxaa sidoo kale jira contiguous zone oo gaaraya 24 mayl badeed, halkaas oo waddanku ku ilaalin karo canshuurta, amniga iyo xasilloonida. Laakiin qaybta ugu muhiimsan waa exclusive economic zone oo gaaraya ilaa 200 oo mayl badeed oo dawladdu leedahay xuquuqda kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira dhulkaas sida kalluunka, saliidda iyo gaaska iyo macdanta. Meesha inta ka baxsan 200 oo mayl waxaa la yiraahdaa high seas, mana lahaan karo dal kaliya. Waa meel caalami ah oo ay shuruuc wadajir ah ka taliyaan. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee sharciga badaha hagaya waxaa ka mid ah heshiisyada ay dejiso hay'adaha caalamiga ah ee IMO. Heshiiska SOLAS waxa uu xoogga saaraa badbaadinta maraakiibta rakaabka, wuxuuna diiradda saaraa sidoo kale ilaalinta deegaanka badda, yareynta wasakhda, halka STCW uu nidaamiyo tababarka iyo shahaadooyinka shaqaalaha badda. Xeerarkan caalamiga ah ayaa sabab u ah in maraakiibta maanta ay haystaan nidaamyo casri ah iyo dabdamis, raadaaro, qalab digniin iyo tababar shaqaale oo joogto ah si loo hubiyo in qof walba oo badda ku shaqeeya uu dib ugu laaban karo qoyskiisa isagoo badbaado qaba. Sharciga badaha sidoo kale waxa uu leeyahay muhiimad gaar ah marka ay timaado dambiyada ka dhaca badda sida kalluumaysiga sharci darrada ah, burcadbadeednimada, tahriibka dadka, wasakheynta badda iyo dambiyada culus. Dhammaantood waxaa jira sharciyo gaar ah. Arrimahan waxay gaar ahaaneed u yihiin badaha sababtoo ah mararka qaar dambigu waxa uu ka dhacaa meel aan u hoos tegin dal oo kaliya. Sidaa darteed wadamo badan ayaa ka wada shaqeeya si dambiilayaasha loo qabto loona ciqaabo. Dhanka kale, shaqaalaha badda kuwa markab ku maqan bilo badan si ay alaabooyinka dunida u socodsiiyaan waxa ay leeyihiin xeerar iyaga ilaaliya, waxaana ka mid ah xuquuqda mushaarka, jadwalka shaqada, badbaadada goobta shaqada, magdhow haddii qof ku dhaawacmo ama ku dhinto shaqada. Waxaa jira maxkamado gaar ah oo loo yaqaan Admiralty Courts, kuwaasoo loo xiro kiisaska badda sida marka markab la qabto ama muran ka dhasho rarka lacagaha la bixiyay. Sharciga badda maanta waxa uu wajahayaa caqabado cusub oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga sharci darrada ah iyo burcadbadeednimada, sidoo kale kooxaha hubeysan ee xeebaha qaar, maraakiibta casriga ah ee aan darawal lahayn, khilaafaadka xeebaha wadamada isku haya, iyo dhaawaca sii kordhaya ee deegaanka badda ayaa dhammaantood u baahan shuruuc cusub oo waafaqsan waqtiga iyo waayaha la joogo. Inkastoo xaaladahaasi adkeynayeen, haddana sharciga badda ayaa weli ah mid nidaam muhiim u ah ilaalinta badda, ganacsiga iyo deegaanka. Ugu dambeyntii, sharciga badaha waa tiir ka dhigaya badaha dunida meel ammaan ah oo safarku ku wanaagsan, ganacsiga iyo nolol maalmeedka malaayiin qof. Waana nidaam isku xiraya dalal badan, ilaalinaya hantida dadka iyo deegaanka, isla markaasna xaqiijinaya dhaqaalaha caalamka uu u socdo si joogto ah. Adduun isku xiran oo alaabtu ka soo socoto kumanaan mayl badeed. Sharciga badaha ayaa ah sharcigii aan la'aantiis dunida istaagi lahayn.